السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلهم وناكسي أصحابي مالك صوت نقدعو ريسان كسو دوادا برنامج كيني وقور ريي ساكي والسبتي تاريخ دنوا كوبية طبقة أبريل سنة يالباكوني لحيا لباتن ساكي برنامج كا وحانو لمد نحي ورباحين تعالم كا إيو قودهان دادك كنو الأدونك إشا وحالو قوضهايا مقالة إسلام آباد عاصمة دالك باكستان. halkaas waxaa gaaray wafuudii Mareykanka iyo Iiraan ma ku soo heshiin doonaan halkaas mise waa lagu soo kala tagi doonaa xaalku waa sidee maxaa ka soconaya Islaamabad xilligan aan idin la hadlayo wararkii ugu dambeeyay wararkaas ku saabsan wada hadallada ayaynu barnaamijka diiradda ku saari doonaa waxaa soo kale barnaamijkan idinku hayaa warbaahintii Mareykanka oo saaki ka hadlaysa shiinuhu inuu u soo raray hub gantaalaha difaaca Iiraan xabad joojintana ay kaga faa'iideysanayaan haddaba maxaa laga yiri sheekada yara barnaamijkan idinku hayaa faahfaahinteeda waxaa soo kale barnaamijkan idinku hayaa Iiraan oo la sheegay kumanaan gantaalaha wali inay kaydkeeda ku haysato sida ay hadda sheegayaan sirdoonka Mareykanka dagaalkii hore waxaa leeyahay intaasoo qarasha ku baxay Iiraan waxba laga ma qaadin haddaba qodobadaas iyo wixii kale warar soo kordhay intaan barnaamijka ku jirno ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahin kulanta wanaagsan asxaabay meel ka soo naga daawaneysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeyay waa barnaamijkii koobaad maanta waa sabti taariikhduna waa 11 Abriil 2026 barnaamijkeena inta badan waxaynu kaga hadli doonaa halka ay indhaha caalamka oo dhan ku sii jeedaan maanta oo ah magaalada Islaamabad caasimada dalka Pakistan waxaa soo kale aan idin haynaa qodobo kale oo aad u xiiso badan balse marka hore waxaynu ku hormaraynaa maxaa ka soconaya Islaamabad haddaba Islaamabad waxaa tagay wafuud kala duwan oo Mareykanka iyo Iiraan ah wafdiga Mareykanka waxay ku tageen laba diyaaradood diyaarad waxay si gaar ah u waday madaxweyne ku-xigeenka JD Vance ninka la yiraahdo ayay waday laakiin waxa ka horeeyay oo tagay Islaamabad diyaarad kale oo gaar ah oo waday Steve Witkoff iyo Kushner nookii wada hadallada u qaabilsanaa Trump wafuud kala duwan ayaa soo dhaweysay iyagu marka waxay tageen saakay aroortii ayay tageen halka Iiraaniyiintuna ay xalay wafuudoodii tageen wafdigii Mareykanka waxaa la dejiyay meel saldhig military ah oo ciidamada cirka Pakistan ay leeyihiin oo ku dhow Islaamabad waxaa eeriyada dhan la adkeeyay ammaanka goobtaas oo dhan aad ayaa loo adkeeyay waxaa markaa la sheegay inay markaa halkaa ku sugan yihiin dhanka kale wararka waxay sheegayaan in xalay ay soo degeen wafdigii Iiraan wafdigeeda waxaa hogaaminaya gudoomiyaha baarlamaanka waxaa ku jira wasiirka arrimaha dibadda waxaa ku jira gudoomiyaha bangiga waxaa ku jira rag saraakiil oo ciidanka ka tirsan tiradaas waay 71 qof ayay Iiraaniyiintu halkaa u direen wafdi ballaaran marka waxaa soo dhaweeyay durbaba aeroboortka ugu tagay taliyaha guud ee ciidanka taliyaha ciidamada ee wadanka Pakistan iyaguna waxaa la dejiyay hotel la yiraahdo Serena la yiraahdo oo Islaamabad ku yaala ayaa wafdiga Iiraan iyaguna la dejiyay marka waxyaabaha aad miidiyaha u soo jiitay waxaa ka mid ahaa in diyaaradda dusheeda Iiraan diyaaradii ay wafdiga ku soo hordirtay oo wafdigeeda soo qaaday dusheeda kuraas bannaan in lagu safay sawirada caruur yar insaas loo safay caruurtii Mareykanka iyo Israa'iil ay iskuulka ku laayeen xilligii dagaalka u socday waxaa lagu weheliyo dhahay safarka caruurtan macnaha nimanka aan u soconno ilmahay laayaan niman naxam ma aha adduunka waxay u sheegaan iyo ficilka ay sameynayaan way kala duwan adduunka waxay u sheegaan
inay xuquuqda aadamaha iyagoo ku horeeyaan oo ilaalinayaan. cid kale hadday dagaalanto waxay leeyihiin qatara samaysay waa in maxkamad dembiyada lagu geeyaa. laakiin kuwan caruurtan iyagu bini aadanka kama mid aha miya maxay yihiin? marka arrinkaa isaguna wuxuu ahaa arrin dareen leh oo wax badan soo jiitay. waayahay marka wafuudda ay tageen maxaa dhacay? waxaa dhacay markiiba ra-iisul wasaaraha Bakistan wafdigii ugu horreeyay uu la kulmay oo si gaara ula hadlay waxay ahayd wafdiga Iiraaniyiinta shuruudo wataan wada hadal ma furmi karo ilaa Lubnaan xabadda laga joojiyo. Israa'iilna way dareensan tahay waxa kan iyaduna duqaymeysii wada iyada iyo Xisbullah iyo jugta la isku haya. marka arrinka marka wuxuu ahaa kulan albaabada u xiran yahay. Bakistaaniyiintu waxay leeyihiin waxaanu ka shaqaynaynaa nimankan inaan la isaga kala dab qaadin. awal waxaa dhici jirtay markii wada hadaladii hore Cumaan isaga dab qaadi jirtay. laakiin hadda waxay leeyihiin fool mubaashir inay isu arkaan oo macnaha waxaan ka shaqaynaynaa labada dhinacba inay fool ayaga intoo isu hor fariistaan oo ay maaragtay wax ku wada hadlaan. marka wada hadalkii Iiraaniyiinta iyo ra-iisul wasaaraha Bakistan uu dhamaaday. waxaa soo kale wada hadallo gali doona wafdida Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha Bakistan. wada hadalladan gooniga markay dhamaadaan ayaa waxaa jadwalkii iyo nidaamkii wada hadallada ayaa markaa la diyaarinayaa oo wada hadalladii ayaa markaa kadib waqtigii ay furmi lahaayeen ayaa la tegayaa. waaba haddii ay ogolaadaan mubaashir inay wada hadlaan sida Bakistan ay rabto. marka hawshaasu halkaasay marka joogtaa. marka waxaa leeyahay wafdigan Mareykanka 17 saacadood ay hawada ku soo jireenoo way daalan yihiinoo iyaga laftirkooda marka madaxweyne ku-xigeenka safarkiisa wuxuu qaataa 17 saacadood. waaye marka warbaahinta Mareykanka gaar ahaan telefishinka CNN ayaa wuxuu qoray sheekada ku saabsan in wada hadalladan Islamabad ay maalmo qaadan doonaan. macnaha maanta iyo berito iyo wax natiijo ah oo la sugayo ma jiraan u leeyahay. waxay qaadan doontaa ciddata ayaam, macnaha dhowr maalmood ayay arrinkani u qaadan doonaan. marka sheekadaasu marka waxay noqon doontaa sheeko oo markaa socon doonta. marka waxaa la isweydiinayaa marka wufuudan iyo shuruudahooda iyo waxooda iyagoo kala wata Israa'iil sidee marka Israa'iil waxaa leeyahay marka Mareykanka laga rabaa isaga inuu joojiyo laga rabaa. wada xaajoodka ma furmayo. Iiraan ma hor fariisanayso Mareykan iyo qof kale ilaa Lubnaan xabadi ku socoto. waa shardiga ugu weyn. shuruudaha kale xataa waa laga tanaasuli karaa leeyahay in amwaalka ama lacagaha laga xanibay loo sii fasaxo iyo waxaas waa laga gudbi karaa. laakiin midda aan laga talaabi karin oo Iiraan ay wadato waxay tahay maxaa ku wada hadlaynaa xabadii waaba dhacaysaa. maxaa ka wada hadlaynaa xabadii waaba socotaa. marka wax laga wada hadlo maba jiraan alle. marka hawshaasu halkaasay maraysaa. marka indhaha caalamka oo dhan waxay kusii jeedaan maanta Islamabad. maxaa ka soo bixi doona? maxaa horumar la gaari doonaa? dowlado waaweyn oo ka hadlaya way jiraan in maaragtay wada hadalka laga faa'iideysto aan lagu kala tegin. waxaa ka mid ah Ruushka iyo dowladaha reer Yurub. dowlado badan ayaa ka hadlaya. waxay leeyihiin arrinka yaa fursadan yaa la luminin. macnaha mar kale dagaal yaa lagu laabanin. marka waa inay xal gaartaan Mareykan iyo maaragtay iyo Iiraan. marka sidaasaa marka hawshu u socotaa. arrinkaasu halkaas ayuu marayaa. wararka kale ee soo kordhay ee cajiibka ah ee saakay warbaahinta saaran waxaa ka mid ah waxaa la leeyahay Shiinaha maraakiib gantaalaha lagula dagaalamo hawada ayuu u soo cabeeyay Iiraan. labadan toddobaad ee xabad joojinta la sheegay ay ka faa'iideysanayaan Shiinaha iyo Iiraan. Shiinaha marka wuxuu u soo dirayaa Iiraan gantaalo kale oo cusub
macalinka lagu tijaabinayo haddii meeshaan maba laisdayn doonee waa laysfarasaari doonaa maray ahaataba ninkan Trump la yidhahdaa wax ma qoro waxna ma akhriyo maaragtay dadka ma dhagaysto maaragtay ninkan wuxuu rabo iska sameeyaa tallaabooyin ku rabo qaadaa marka nimankan marka waxay u diyaarsan yihiin haddana gantaalo kale ayaa loo keenaya haddaba marka aan aragno wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay warar dhinaca sirdoonka Mareykanka laga helay waxay sheegayaan in shixnado gantaalaha shiinayska ah la keenayo Iran loo soo wado haddaba wararkii ugu dambeeyay shabakada CNN ee dalka Mareykanka laga leeyahay ayaa waxay sheegteen macluumaad dhinaca sirdoonka Mareykanka laga helay in Shiinuhu uu diyaariyay inuu siiyo gantaalaha difaaca hawada oo cusub Iran inuu u diro toddobaadyada soo socda ama maalmaha soo socda inuu halkaa u diro haddaba waxaa la sheegayaa gantaalahanu inay ku jiraan kuwo lagula dagaalamo diyaaradaha noocyadooda kala duwan oo weliba lagu qaado garabka lagu qaado oo markaa aan u baahnayn in maaragtay baabuur iyo qalab kale la saaro askarta inta loo qaybiyo ayay waxay la dagaalamayaan diyaaradaha dagaalka noocyadooda kala duwan haddii ay yihiin kuwa dagaalka ee Mareykanka marka hawshaas marka halkaasay mareen muujeeda inkastoo warbaahinta Shiinaha mas'uuliyiin ay soo xigatay yiraahdeen nimankan waa wareereen wax ka jira male warkaasi leeyahay laakiin nimanka sirdoonka Mareykanka waxay leeyihiin nimankanu alaabtaasaa loo soo wadaa hadday gacanta ku dhigaanna waa bas diyaaradda waa kii maalmo dhaweyto lalahaa gantaal garabka laga garo Turkiga laga keenay ayaa diyaaradii Mareykanka F-15 lagu soo riday oo Turkigu lahaa waxaas waa been hadda marka waxaa leeyahay gantaalahaas oo rasmi ahaba loo soo raray diyaaradda askari kasta dabaqo inta la fuulo ama meel la fuulo ayuu diyaaradda markuu arkaba isaga soo dhaweynay wuxuu leeyahay bahal soo dhaweysaa diyaaradii hawada ku jirto inta soo dhaweeyo gantaalo lagu ridaa bar cidii uu salaam waa F-16 iyo F-15 iyo waxaas waa ku daayeen marka nimankii marka baqdintaas saasay u jaraynayaan Mareykankii waxay leeyihiin Shiinayskii fursadan oo inta ka faa'iideystay oo maaragtay dulduleeladeennii arkay waxa aan ku dagaalamayna arkay ayuu meelihii marka dulduleelada la isaga difaaci lahaa ayuu nimankan u soo wadaa weli waxaynu ku jirnaa wararka xaaladda gobolka bariga dhexe wakaaladda wararka Anadolu ayaa iyaduna waxay qoraysaa mas'uuliyiin Mareykan inay yiraahdeen Iran weli waxay haysataa kumanaan sawaariiqda plastiga ah wixii la sheegay waa been ay yiraahdeen warbaahinta Mareykanka Wall Street Journal iyo ayaa ka hadlaya oo la soo xiganaya wasiirka gaashaandhigga Mareykanka dhawaan hadal uu sheegay waa baabi'inay kan waxaas meel iska dhigay waa hadalkii Israa'iiliyiinta mogeed ay shalay aan sheegaynay hadalkaas ay nimanka Israa'iiliyiinta sirkooda soo heleen ayaa Mareykanka ka hadlayaan ma Israa'iil ka qaateen mise iyaguna gooni ayay u soo heleen taas waa macna kale laakiin iyaguna waxay leeyihiin waa ku qasaarna dagaalkii hore sababtoo gantaalahoodii nimankan kumanaan haystaan kumanaan gantaala ah ayaa weli u haray oo nimankan ay haystaan oo gacanta ugu jiraa la leeyahay marka hawsha iyaduna halkaas ay maraysaa waxay ka mid tahay nooc ka mid ah baqdinta iyo cabsida ay qabaan nimankan waayahay marinka Hormuz maxaa ka soo kordhay isaga Mareykanka waxay ku doodayaan in la furo marinka Hormuz laakiin laba arimood ayaaba soo kordhay hadda Iran waxa leeyahay lacagta riyaalka Iran lagu gudbay tir isbaara ma dhiga kartay lacag ma qaadan kartay Trump meeshaada la fadhiyo meesha anaga joogna lacag qaadanayna midda kale warbaahinta Mareykanka waxay leeyihiin si da'iil ah oo aad u yar ayay maraakiibta xataa u gudbayaan sababtoo ah kulaha meel walba miina ku jirta haddana kulaha waxa laga baqayaa ciidanka ilaalada kacaanka Iran meelihii miinada ay geliyeen inay aqoowayeen ma jabhad miya nimanka ilaalada kacaanka Iran meel miina geliyeen markay aqooweynayaan ma ciyaar xaafadeeda jabhad miya burcadbadeed miya
نور عيدنا حضارات له أنت سو باش تشوي ومينada ayaga gashaday ayaa Mareykan wuxuu ku leeyahay waxaan u maleynaynaa sida maartay tartiibta maraakiibtu marayaan ayaga laftirkooda ka shakisan meelaha miinada ay gashaday marka arrinka waxay u baahan tahay gacan in lagu siiyo kula macnaha gacan lagu siina Amerikaan ay maanaya ama reer Yurub ay maanaya miinadii la qaada waxa shaqeynay baareed marka sheekadaas iyaduna way cusub tahay oo way soo korortay Mareykan Hormuz arikaasa ka taagan qadar xayisiisa kadib warar cusub ayaan raadinaynaa ku saabsan Islaamabad iyo wixii kula wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta sabtiga qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeenu marina haddaba qaybahan alaaba waxaynu ku soo qaadanaa macluumaadka iyo wararka soo kordha inta aynu barnaamijka ku jirnay haddaba qaybtan waxaynu kaga hadli doonaa war cusub oo hadda soo dhacay oo leeyahay Pakistan waxay diiradda saaraysaa inay maanta wafuudda si mubaashara isu arki karaan haddii marka ay waxa leeyahay haddii ay suuro geli weyso oo dhinacyadu ay ku adkaato inay toos isku arkaan oo ay toos isu hor fariistaan liqaa kale ama kulanka oo aan tooska ahayn wuxuu u dhacayaa maalinta axadda ay berito macnaha maanta kulan ma jirayo waaye maanta Pakistan waxay ku dadaalaysaa hadda dadaaladii socda in mubaashar la soo arko oo baalti wafuudda horta ay wada fariistaan oo la iswaraysto oo la salaamo kadib la kala tago laakiin haddii ishor fariisadkan oo tooska ah oo mubaasharka ay wax hagaagi waayaan ay noqoto kulamo aan toos ahayn waxay leeyahay Al Jazeera hadda leedahay Pakistan waxay yiraahdeen axadda ayuu marka kulanka oo furmi doona wafuuddu marka maanta way iska nasanayaan alle kullay indhaha caalamka oo dhan waxay ku sii jeedaan Pakistan caasimadeeda Islaamabad annaguna halkaas wixii ka soo baxa ayaanu idin la wadaagi doonaa adduunkan oo kamid nahay haddaba barnaamijkii waa nageyntaa inta aan marka la kulmayno like garay oo share garay barnaamijka ku xirnaada mar walba barnaamijyadeena xaqiiqada ku salaysan inagoo mar walba idin la wadaagnaa wararka iyo mawduucyada aan idiin soo gudbino halka ay ka yimaadeen inta aan mar kale kulmayno asxaabe meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo